magaalada Burco waxaa maanta ku geeriyooday Allaha u naxariistay jilaagii caanka ahaa Ibrahim Ismaaciil Sugulle oo ku magac dheeraa Sooraan. laxman maanta wadiidiibe naade way imsa ma lax geesanaad arag la heede lax meesha kuma haye Sooraan waxa uu ahaa shakhsi isku darsaday hibooyin kala duwan oo ka mid tahay hal-abuurnimada gabayga midhaha qorista ruwaayadaha jilista ruwaayadaha الله ونحرسته أبوان إسماعيل سجل سوران أيا شلي كوجيريودي مجالة برعو كاسو مدو لح يلا باتن عشاو تشيفي حنونكا كوفر سجال طبعا جيريدسا أيا تابطي قلوب تبلشب بدن أو كحنيد روايده سا أيا متشجلدي سبا تاساي تبي دونان أبوان سوران أيا أها أبوان بلشد سوين وتقانو روايده سا أيا سوغانتي سبا كاسو سامين كويا شيء دمان أمد الصوماليات الله ونحرسته وحسب جود يسجرا هند بوجة تعسيدي جيردا نحن تلا كتمد دمان بلشد Soomaaliyeed iyo madaxdoodaba kuwaas oo barahooda internetka ku baahiyay geerida Sooraan. Abba Sooraan Ismaaciil Sugulle Ilaahay naxariista jannaha ku waraabiye waxa uu ahaa nin aad iyo aad u dabeecad fiican, nin dadnimo leh, nin masaakiinta caawiya, nin saaxiib salaad ah, nin isqabqabsiga iyo muranka nacib. Wuxuu ahaa nin calool xaaran oo aan dadka caloosha waxba ugu qaadin. Wuxuu ahaa nin nadiif ah sidoo sheegay saaxiibkii Ciise Jawaan oo ay riwaayadihiisa wada jili jireen. Abba Sooraan Ilaahay naxariista jannaha ku waraabiye ku dhashay magaalada u dhaxaysa Burco iyo Madamago oo leedaado Giri sidoo kale yaraantiisi wuxuu malcamada ka bilaabay Burco laakiin iskuul lama geyn hasaatee wuxuu yaqaan akhriska iyo qoraal. Abban Sooraan waxa uu fanka iyo suugaanta ku biiray sanadkii 1973 sidoo sheegay isagu. Abban Sooraan waxa uu adduunka kaga tagay 2 xaas iyo 3 caruur ah iyo waliba gabadh uu awoow yahay. Alla naxariista jannaha ka waraabiye. alwaad inan baan la hadlayaa hadalkiina kala go'ay meel wanaagsan bay noo marisay waxay ku soo doorwaa hal dool nima sidis wala ka gaarsiiyo waraabada ka meel wanaagsan noo mariyay waan dumarka telefoonku ma kala shaqeeyay way ku ma taqana hadalka kale ma aqaanba gabadhu anigu marka hor taaganay ma aqaan telefoonka laakiin waa caadi. Abban Sooraan alla naxariista jannaha ka waraabiye wuxuu ahaa midadaaliye mufakkir ah iyo mu'allif marka aragto mabsuud ka dhigaya. Wuxuu ahaa qof alle hibuu siiyay hal abuur gaar ah. Wuxuu ahaa ubax qalbiyadeena ka dhex beeran oo aragiisa iyo agtoogiisaba lagu ilaawo murugada iyo mashquulka adduunka. Wuxuu lahaa hab sawir cajiib ah oo si weyn u gudbinaya habnololeedka bulshadeena hadba wixii ka qaldan ha wanaagsanaadaan ama xumaadaan. Matalaadiisu may ahayn mid iska yeel ah ee waa hibo Ilaahay ku ilhaamiyay Abban Sooraan alla naxariista jannaha ka waraabiye. Sidoo kale Abban Jawaan oo ahaa saaxiibkiisa ugu dhow ahaana ninka ay riwaayadaha wada sameyn jireen sidoo kale ay wada jili jireen ayaa geeridana si weyn u taabatay. Ilaahay samriye imaan ha ka siiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Ilaahay samriye imaan ha ka siiyo abwaanka weyn ee ka baxay waa tiir weyn oo ka dhex baxay ummadda Soomaaliyeed. Inta Soomaalida ee afka Soomaaliga ku hadasha saameyn weyn ayuu ku yeeshay. Sidoo kale bahda fanka iyo suugaanta iyagana uga tacsiyadeynana inuu Ilaahay samriye imaan ka siiyo ehelkii qaraabadii qoyskii asxaabtii dhammaan samriye imaan Allah idinka siiyan leenahay. Sidoo kale qoyskiisii awlaadiisii iyo dhammaan xaasaskiisii intuu ka tagay Ilaahay samriye imaan ka siiyo. Intaas ayaan ku soo koobnaa barnaamijkan waxay idin la socodsiinayay anigoo Ridwaan ah. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun.